الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقات كلا أو كمية حلقات في برنامج تحناها نقوم قعدرني إضاءات رمضانية. هذا بحلقتني هدي إلى هيد موحن نسكت تاجنا قسوة بدر الكبرى قرآنكم وكم مقعبي يوم الفرقان. دجال كاسي وحين نسكت تاجنا دور قضب أو دروستي لقى فائديستي أم بلغان كلا صباح يني دجال كان بدع ذوي ولا ليال قسوة بدر waxay dhacday sanadii labaad ee taariikhda hijriga nabiga sallallahu alayhi wasallam bishii ramadaan 17keegi muslimiinta waxa hogaaminayay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam gaaladana waxa hogaaminayay abi sufyaan walaalayaal hadaba qaswadaasi waxay ku suntan tahay sida suuratul anfaal ay qaada dhigtay in waxa weeyaan guulihii ugu waaweynaa muslimiintu soo hooyeena nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam darsiga koobaad in kala soo baxayno waxa weeyi in markii ay qaswadu bilaameysay uu nabiga sallallahu alayhi wasallam duco u galay nabiga ducooyinkii maalinta ku ducaysay waxa kamid ahaa intuu gacmaha kor u taagay sallallahu alayhi wasallam inuu ri ya rabbi anjiz li ma wa'atani anjiz li ma wa'atani ilaahu wixii adigu yabahday igu ballan qaaday ii oofi إلا وحويان رداقيسي أبو هو النبي صلى الله عليه وسلم قرب كيس دبا كدعي وأبو بكر صديق رضي الله تعالى وقبتي وري رسولك إلهي وإلهي سبحانه وتعالى وكم مقل يوون وكوفين دونه سيدا درتيد إلهي سبحانه وتعالى يقول دعيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم أي سورة الأنفال إلهي كتل مامي إلى حوري إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين حس نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا صحابة حل آد استقاثة يا دعاء وحوين لا تغنيدين وإلهي بريسين إنه إلهي مدد إني في ديو إلهي شنكن أو حوين ملائكة أي حوين أفدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا درسي قاسي وحوي ودرسي أي نكفى إذا سنين النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي باهيديس u bandhigtay dagaalku intuuna bilaamin ka hor mabda labaad aba darsiga labaad in ka faa'iideysanayna qaswatu badar walaalay waxa weeyaan waa mabda shura ta'kiid mabda shura in la inoo adkeynayo oo inuu kala soo baxayno in waxa weeyaan oo la wada tashado hogaamiyaha guuleystay waa hogaamiyaha la tashada waxa weeyaan dadkiisa iyo ciidankiisa sida darteed nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu la tashaday qaswadaasi saxaabadii waaweynaa sida Abu Bakr Sadiq radiyallahu anhu iyo Umar bin Khattab radiyallahu anhu saxaabadii waaweynaa la tashaday isagoo oo waxyiga hadayo oo xataa duu qaraar qaato aan ku khaldamayo maca dalika nabi sallallahu alayhi wasallam saxaabadii ku soo celiyay go'aan ay la tashanayo arinta saddexaad waxa weeyaan أن الأسباب المادية وحدها لا تنفع يعني قفكو سببها مادية إنه قاتو كل جدي إنه نقول كني كريم وحويان يقو ترير أي كقول يستوي وحويان عيدا كيس الصوبة هيستوي وحويان أبي سفيان وهو جامين يقال هذا والله قلت المامي لا صدحكم هل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرخته شاقان قسوة بدر وحويان صدح بقول يصدح طبعا بصدح بقول يفرق طبعا إلى يحور سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة قلبت فئة كثيرة بإذن الله بدنا مرأي كوح يرون نقن كقولي سنيسو كوح فر بدن مركا قاركو تيرada badani waxa weeyaan macna ma sheegto oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam saxaabada yara kooban oo iimaanku ugu dhisan yahay oo macnawiyeedku ugu dhisan yahay ayuu halka geeyay waxa weeyaan kalsooni iimaan bay ku galeen arinta kale inuu ka faa'iideysan waxa weeyaan walaalayaal qaswadani waxay kala saartay kii munaafiqaha ee islaamku ku gabanayay iyo kii dhabta iimaanku ka dhabha saxaabaduna way ka run sheegeen nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaalkaasi qaswatu badar waxaynu kala soo baxaynaa walaalayaal duruus ay aad u fara badan oo ay kamid tahay waxa weeyaan duruusta ama qodobada aynu soo xusnay hadaba qofka muslimka ah waxa la gudboon inuu waxa weeyaan mar walba waa shahwaadkiisa iyo waxay naftiisu ay jeceshahay uu ka adkaado uu ka guuleysto waana duruus aynu kala soo baxaynaa qaswatu badar weeyaan walaalayaal dhacdada weyn ee muslimiinta iyo waxa weeyaan جيشكي منافقين كفار قريش
dhex martay taariikhda islaamka waxay ku sugan tahay guulihii ugu waaweynaa islaamku soo hooyey nebi maxamed sala allahu calayh wasalam taqriiban waxaa ka shahiiday qaswadaasi 4 saxaabi halka waxa weeyaan qoladii munaafiqiinta ahaydna 70 laga dilay 70 waxa weeyaan maxaabiistaan loo qaaday waxaana ka mid ahaa maxaabiista maalinta la qaaday wiilkii waxa weeyaan Abi Sufyaan baa ka mid ahaa oo markii u dambeysayna dagaalkii qaswatu Uhud ee sanadii 3 dhici doonta waxa weeyaan sabab noqotay inuu nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina kaga daba tago hadaba nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa wuxuu u tababaray waxa weeyaan qaab cajiib ah oo iimaaniyaadkooda iyo waxa weeyaan ruuxaniyaadkooda u dhisay sallallahu alayhi wasallam waana ta keentay guusha ilaahay waxaynu ka baraynaa subxaanahu wa ta'ala inuu waxa weeyaan islaamka u heeliyo dhibaatooyinka dhacaya waxa weeyaan dawahniga iyo dacfiga maanta caalamul islaam u marayaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaaladdan ka fiican ilaahay ugu geliyo subxaanahu wa ta'ala kuwa taariikhdooda iyo waxa weeyaan sooyaalkoogii horena akhrista ummadda islaamku oo dib waxa weeyaan u tixraacana Allah subxaanahu wa ta'ala inaga yeelo sidoo kale bishii ramadaan baynu ku jirnaa waxaa loo baahan yahay in waxa weeyaan ayaamihii u dambeeyay waliba inaan kala barmaraynaa inaan waxa weeyaan nafteena insha Allah ta'ala inuu ka adkayno xakamayno oo khitaam iyo waxa weeyaan wanaagsan iyo gabagabada aynu ku soo gabagabayno laana al-ibra bil a'mal wal khawatim weeyaan ibrada amalka marka la qabanayo waa gabagabada sidarteed waxa weeyaan inama al-a'malu bil khawatim wayna gabagabo fiican bisha ramadaan ku soo gabagayno ilaahay subhanahu wa ta'ala haynaga aqbal bisha ramadaan soonkeena iyo salaadeena iyo dhamaan a'maal saalixaadkeena qabanayno dhanba ilaahay subhanahu wa ta'ala haynaga aqbal walayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala bishana khayran ugu khatimo bisheedana caafimaad qabal inuu gaarsiyo dhamaantii wad mahadsantihiin daawadayaal wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad subhana rabbika assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh